bisha Agosto sanadka 2026 haddaba barnaamijka waxaynu ku soo qaadanaynaa wararkii ugu waaweynaa ee soo kordhay intaynu kala maqnayn Iiraan oo qabsatay markab Imaaraadku leeyahay burcadbadeed Soomaaliya oo iyaguna xeebaha Soomaaliya ka qabsaday markab aan la sheegin ilaa hadda cidda iskale balse la xaqiijiyay inuu ahaa markab xamuul Trump oo isaguna sheegay in uu si xun u duqayn doono Cumaan qodobadaas ayaynu caawa barnaamijka ku soo qaadanaynaa intaanu ku jirnana wixii akhbaara ee soo kordhawaan idinla socodsiin doonaa Safari Remit waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay ilaa iminka wadamada ay xawaalada kugu diri karto waxa kamid ah Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey. qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada. Xawaaladan waa online. waxaa dhammaanba bulshada lala socodsiinayaa meel kastoo ay joogaan gaar ahaan dalka Kenya iyo geeska Afrika iyo magaalada Nairobi inay jirto shirkadda caan baxday shirkadaha uga duwan xagga diyaarinta dhismayaasha dhaadheer oo waa shirkadaasi caanka ahi waa shirkadda lagu magacaabo Emara Luxury Homes Limited ee fadhigeedu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya gaar ahaan Kilimani iyo wadada caanka ee lagu magacaabo Leilani Road bilood hadda ka hor qiimo dhibidii aan soo celinay labada bilood ahayd walaalo badan baa ka faa'iideystay oo dal iyo dibadba jooga haddana mar labaad waan soo celinay waxaan ugu baaqahayaa bulshada Soomaaliyeed ee adduunka dacaladiisa joogta inay ka faa'iideystaan adeega maamuus ee shirkadda Hormuud waa xirmooyin adiga ku gaar ah oo ka kooban internet kaliya ku hadal kaliya ama internet iyo ku hadal wada jira naftaada ku maamuus xirmooyinka adeega maamuus oo kaga shubo hadda xidig 212 afargees dhammaan bulshada waxaa lala socodsiinayaa gaar ahaan magaalada London in xarunta dhinaca caafimaadka French and Overseas Clinic ay ku taalo meel aan ka fogeyn stationka tareenka ee Baker Street ee bartamaha magaalada London halka waxaa jooga dhaqaatiir kala duwan oo ka daaweynaya cudurro ay ka mid yihiin kuwa maqaarka kuwa carruurta kuwa haweenka iyo cudurrada guud dhaqaatiirta halka ka howlgashay howladaynadoodu waxay diyaar u yihiin inay wixii caafimaad ay kula qabtaan waxaa intaasi dheer in xaruntaasi French and Overseas Clinic ay ka howlgalaan dad Soomaaliyeed oo aqoon u leh xagga caafimaadka dadka Soomaaliyeedna si gaar ah ula shaqeeya haddaba bulshada meel kastoo aad joogtaan way ka abaal sheegteen intii tagtay xarunta caafimaad ee French and Overseas Clinic ee aduunkuna maanta kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo naga daawanaysaan ku soo dhawaada mar kale iyo mid kamid ah barnaamijyada aan idinku talagalnay waa barnaamijkeena habeenimo isniin ah talaada ay soo galayso taariikhduna waa 17 bisha 8 2026 qodobo muhiim ah oo soo kordhay intaynu kala maqnayn ayaynu barnaamijka ku soo qaadanaynaa ugu horreyn waxaynu ku bilaabaynaa markab Imaaraadka leeyahay oo la sheegay Iiraan inay qabsatay muxuu haleeyay amarkeedu diiday haddaba muxuu samayn doonaa Imaaraad lama yaqaano haddaba aan idin tuso warbixintan waxaa goordhow qoray waa war degdega telefishinka Ruushku leeyahay ee la yiraahdo RT haddaba telefishinka RT wuxuu soo xiganayaa wakaaladda wararka Iiraan ee la yiraahdo Faris Iiraan waxay qabsatay markab kuwa shidaalka qaada oo Imaaraadku leeyahay waxayna ku qabatay maranbiyoodka Hormuz kadib markii markabkaasi uu khilaafay habka loo gudbayo maranbiyoodka Hormuz ee ay Iiraan soo bandhigtay wakaaladda Faris waxay sheegaysaa in fiidkii caawa oo isniina la qabtay markabkaasi oo ah kuwa shidaalka qaada oo Imaaraadku leeyahay isagoo marayay maranbiyoodka Hormuz haddaba sida ay qortay wakaaladda wararka ee Faris markabkan waxaa iska lahayd shirkad laga leeyahay wadanka Imaaraadka markabkan ayaa la sheegay inuu ka hor yimid wixii Samayl yiri kadibna lagu qabtay meel ku dhow jasiirad ay Iiraan leedahay oo qasham la yiraahdo halkaas ayaa lagu hayaa Iiraan markabkii dhanay qabatay awalna waa weydeen Imaaraadku maraakiib hore 3 laga garaacay haddana waa soo garguurana waa soo socdaa war xagee u socotaa waa maraya meesha maxaad maraysaa macnaha Imaaraadku waxa ka dhaadhacsan Hormuzkan qayba ka degantahay waxba ku leedahay
marka sidee lagu joojin karaa hadda waxba laguguma dhufanayo waaba la qabanaa markabku waa la xiraa haddaad awood leedahay wax isku haysid kaale markabkaaga furaa leen haddaad meesha degan tahay sheekadu marka waa adag tahay warku waa cusub yahay imaaraadku waxay ka soo saaraan waa arki doonaa kolley hadda warkan wakaaladda wararka ee farisa sheegtay markabka inuu imaaraad leeyahay oo markaa iiraan ay gacanta ku dhigtay ayaa la leeyahay waay qodobka isaguna halkaas aan kaga gudbaynaa ninkii Trump waxaa la sheegayaa wuxuu yiri Cumaan waa duqaynaya uu ka shakiyay heshiiskii baarmaan Cumaan iyo Iiraan la isla wada lahaa wuxuu isiri nimankii Iiraaniyiinta Cumaan way kala wareegeen odagii afku furtay bark aanay tuso barka wargeyska la yiraahdo Al-Quds wuxuu leeyahay Fox News ayuu u sheegay Trump inuu ku hanjabay inuu duqayn doono Cumaan haddii ay carqaladayso waxa uu ku tilmaamay Washington qaabka ay u rabto in loo maro marinbiyoodka Hormuz haddaba marka warbixinta way sii socotay waxaa la leeyahay Fox News ayaa sheegtay in madaxweyne Donald Trump uu ku hanjabay inuu si aad ah u duqayn doono waddanka Cumaan haddii uu hor istaago waxa uu ku tilmaamay howlaha Mareykanka uu ka rabo gacanka Hormuz wariyaha Fox News ninka la yiraahdo Terry Youngson ayaa soo gudbiyay hadalka Trump ee ku saabsan gacanka Hormuz kadib waraysi uu la yeeshay madaxweynaha Mareykanka haddaba wariyahan oo la yiraahdo Youngson ayaa yiri markii Trump la weydiiyay waxa uu sameyn lahaa haddii Cumaan ay farageliso howlaha Mareykanka ee gacanka Hormuz wuxuu ku jawaabay haddii Cumaan ay naga hor timaado si aad ah ayaan u duqayn doonaa ayuu yiri way marka waa hanjabaad toos ah ayaa hawada la isu marinayaa meeshaan ma la isku dhaxayo waa arkaysaan marka hawshaas iyaduna halkaas maraysa xaalku halkaasuu joogaa marka warkaasaa soo kordhay dhanka Yemen warar cusub oo sidaas ma jiraan laakiin galabta waxaa la sheegay in Xuutiyiinta ay weerar cusub ku qaadeen mar kale meesha la yiraahdo Mukha iyo Ma'arib ayay haddana waxay ku duqeynaan leeyahay gantaalo iyo sawaariiq sida la sugayay wali wax wara oo ka soo baxay dhanka Xuutiga ma jiro gantaalihii maanta la yiri Xuutiyiintu waxay ku garaaceen Babal Mandab ayay ku garaaceen wali wax akhbaar ma jiro dhanka kale Sacuudiga wali wuxuu ku howlan yahay diyaarinta isbahaysi weyn oo xoog leh oo markaa ilaaliya marinbiyoodka Hormuz kana hortaga dhibaatada ay halka ka wadaan sida Sacuudigu leeyahay kooxaha argagixisada ah ee la yiraahdo jamaacad irhaabiyo yiraahdo kooxaha argagixisada ah ee Xuutiyiintu ka wada marka hawshaas iyaduna halkaas maraysa macaashahay barashada quraanka kariimka iyo culumta shariicada hab casri ah online adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqada markaas Daaru Taqwa waxa kugu baraya quraanka hab casri ah online maadooyinka ka bar karto waxa kamid ah quraanka kariimka igada luqada carabiga iyo culumta shariicada sidoo kale way socotaa fadlan horugaad waxay faahfaahin kala xiriid nambarada shaashada kaaga muuqda hamogaadi dugsiga markaas Daaru Taqwa waxa waalidiinta Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Ingiriiska iyo guud ahaan caalamka laydin hayaa fariin ka timid maamulka iyo macallimiinta iskuulka Beacon International Academy iskuulkan waxa uu ka saacidayaa caruurta waxbarashada International GCSE-ga si ay caruurta u helaan aqoon aad u sareysa isla markaana ay ugu biiraan jaamacadaha caalamiga waxay sidoo kale Beacon International Academy idin diyaariyeen in caruurta laga dhisi doono akhlaaqda dhinaca diinta islaamka iyagoo la bari doono quraanka luqadda carabiga axaadiista iyo waliba af Soomaaliga fadlan la xiriir website-ka telefoonka wac isna diiwaangeli si caruurtaadu ay uga faa'iideystaan fursadan iyagoo jooga gurigooda online ayay ku baran karaan macallimiin khibrad leh ayaa la idin diyaariyay sidoo kale waxa la soo xiriiri kara dadka Soomaalida ah ee meel kasta ee dunida jooga oo iyaguna doonaya inay aqoontooda luqadda ay sare u qaadaan la xiriir oo hadda wac isna diiwaangeli Beacon International Academy waa tahay qaybta ugu dambaysa barnaamijkeena caawa waxaanu ku soo qaadanaynaa war cusub isagana galabta waxaa la sheegay in la weeraray markab marayay xeebaha Soomaaliya koox burcadbadeeda oo 8 qof ayaa markabka fuushaa la leeyahay oo qafaalatay
haddaba aan idin tuso telefishinka la yiraahdo Sky News ayaa wuxuu qoray warbixin uu leeyahay 8 dagaalyahan oo hubaysan ayaa fuulay oo qabsaday markab kuwa xamuulka ah oo marayay xeebaha Soomaaliya sida la leeyahay. haddaba hay-adda howlgallada dhinaca ganacsiga badda ee Britain ayaa sheegtay maanta Isniina in 8 nin oo hubaysan ay fuuleen markabka kaasoo la sheegay inuu marayay xeebaha Soomaaliya wayna qabsadeen ayaa la leeyahay. haddaba ilaa hadda lama sheegin magaca markabka, calanka oo markaa ka dulbabanaya markabka noocu ahaa iyo cidda iska lahayd. weli wax tafaasiila oo dheeraada lagama soo saarin. maalmahan hadda ka horna waa ogeedee markabkii ay saarnaayeen nimankii masaarida ahaa iyo lacagta fara badan lagu rabay iyo haddana waxaa leeyahay markabkaasaa la qabtay, inkastoo markabka weli aan tafaasiishiisa isagona lahaynin oo calanka uu watay iyo wadanka iska lahaa iyo cidda la socotay weli lama hayo. laakiin nimankan waxay leeyihiin markabkaas 8 nin oo hubaysanaa fuushay waana la watay, wuxuuna marayay xeebaha Soomaaliya la leeyahay. marka waa arki doonaa kolley wixii akhbaaraada soo kordha. wararkaas ayaa ugu waaweynaa caawa barnaamijkeena. barnaamijkii labaad iyo kii koowaad iyaguna aaday u xiiso badnaayeen. dadka jecel barnaamijyada iyaguna warar aad u xiiso badan ayay halkaa ka heli doonaan. inta aan mar kale kulmayno meel kastoo aad joogtaan haddii aan la idmo nabadgelyo.